munaasabadani ay xilka kula kala wareegayeen isuduwii hore hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha gobolka Awdal iyo isuduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Awdal ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal badiba shaqaalaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha gobolka iyo sidoo kale mas'uuliyiin tiro badan oo ka soo qayb galay munaasabadani waxaana ugu horreyn halkaasi hadalka qaatay qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha gobolka Awdal iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka Awdal iyagoona soo dhaweeyay isuduwaha cusub sidoo kalena hadalla sagootina u jeediyay isuduwii hore ayaa waxay yiraahdeen labadana saaxiibada isna shalay wixii ka hayay kana maanta qabanaya waxaan baan leenahay saaxiibkeena si bogaadino ilaahay meel khayr qabta oo wanaagsan u geeyo ninkeena cusub marka loo shaqaalihiina ahana in ilaahay xilka u fududeeyo xilka ilaahay u fududeeyo xafladan horta ma cusub maalin ba mid ba lagu jiray waxa weeyaan isku duwihii sideedaad ee gobolkan xafiiska gobolka anu kamid baan ku soo maray 12 sano ka hor safana waa kii ugu dambeeyay imika xilkuna waa meerto anagna diyaar baan u shaqaday laga bilaabo maanta dhibaatada iyo caqabada naga hortibid kaliya gudoomiye waxa weeyaan waa xafiis laan baheed inta kadib waxaa hadalka qaatay isuduwii hore hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha gobolka Awdal Saciid Maxamuud Rooble iyo sidoo kale isuduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay Mustafa Muuse Hami barakacayaasha gobolka Awdal waxaan ka dhisnay gudiyadii markii hore aanan jirin kaam kasti wuxuu leeyahay gudi dhameystiran dhinaca qaxootiga waxaan ka sameeynay markaa diiwaan gelin ballaaran ayaan sameeynay oo markaa aanu qaybnay kaadhadh qaxootiga ku nool Boorama ee ah Itoobiyaanka iyo Yamaanida iyo Suuriyaan dad badan oo soo noqdayaasha ah ayaan wax qabad fara badan u sameeynay 17 dhalinyaro ayaa shaqo abuur loo sameeyay oo markaas laga soo celiyay Liibiya oo halkan markaa ka ganacsada waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga qaranka Cabdikariin Maxamed Axmed Xinif oo ii magacaabay isku duwaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha waxaan ilaahay ka rajaynayaa xilka la ii magacaabay inuu ilaahay ugu asturo aanan noqdo magacaabista la ii magacaabay mid ma aragtay la mahadiyo ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay isla markaana si rasmi ah mas'uuliyiintan xilka ugu kala wareejay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro sida ay noognahay sunnaha dawladnimada ka mid tahay in xil lagu magacaabo xil laga qaado qof kasta oo shaqaaleena waa arin sugayso dawladuhu ama hay'aduhu waxay ku wanaagsan kolba in la dardar geliyo waayo kolba qofka cusub bay energy cusub haya in kastoo xafiiste muuqdo sida adaygu sheegay aanay lahayn haddana inaan xafiiska ku siimeel gaaraan siino intaan milidin helayno annagu waynu idin qayla tagnaa xafiis leedin kireeya gaari leedin soo heliya laakiin idina dawladda shaqadeeda la timaadaan idinkoo dadaalaya marka la arko dhanba waxa la inoo dhaqaajinayaa way isla shaqaalihiin iyo meel meedaan kala tagin waxaan idinka filaynaa inay isuduwaa cusub la shaqeysaan Saciid laftiisu soo ballan qaaday waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.